فيه ننمو وأمانينا تزيد. بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود، بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود. كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد، كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد. وأبي دوما وأمي منبع الحب الأكيد، كل فرد منهما حقا له قلب ودود. جعل الفرحة بين الكل في البيت تسود، جعل الرحمة تغشانا كما الظل المديد. حبب البذل إلينا فترى الكل يجود، فترى الكل يجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، أحبكم في الله. horta ilaahay daraaddii baan idinku jeclahay subxaanahu jalla wacalaa. waana darajo aad iyo aad u sarraysa, waana darajaadka lagu gaadho carshuraxmaan hooskiisa in la hoos harsado. ilaahayna waxaan ka baryaa anigiyo idinkaba inuu kuwaa nagu daro, wejiyadeennana uu naarta ka xoreeyo. qodobka ama mawduuca la qoondeeyey inaan wax ka tilmaamo waa mawduuc aragtidayda aad iyo aad muhiim u ah. waxaa la yidhaahdaa dhismaha qoys wanaagsan ayaa la yidhaahdaa. waxaan jeclaan lahaa oo codsina iga ah, muxaadarada qaab projector aan u soo diyaariyey, laakiin waa laga yargaari waayey in la wada daawado la arko. hase yeeshee waxaan diyaar u ahay qof kasta oo jecel inaan muxaadarada aan siiyo inaan siiyo. USB qofka haysta waan siin karaa, qofka emailkiisa isiiya waan siin karaa. qaybta koowaad ee muxaadarada ee muqadimada ah waxaanse ka sii jeclaan lahaa qofka qalin iyo buug haysta inuu qorto. waxaan u bixiyey kelimadani laba mawduuc bay ka koobnaan doontaa. qaybta koowaad waa qaybta hordhaca ka ah, waana 39 qodob weeye. waxaana la yidhaahdaa ibaro waan ku barane. qaybta labaadna isbarashadaasi wixii ka dhashay oo aan u bixiyey mafaatiixu tafaahumi bayna azawjayn, furayaasha la ysku fahmo lamaanuhu ay isku fahmaan. labadaa qaybood bay ka koobnaan doontaa haddii alla yidhahdo subxaana wa tacaala. marka ciddii xoogaa jacayl dareemaysaa soo fadhiisato. ciddii jacayl yardar dareemaysa ama doonaysa inay reer dhisato mustaqbalka, ama xoogaa reerka ka yar hallaysan yahay oo doonaysa hadda inay toosiso, ha soo fadhiisato insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo. hordhaca wuxuu leeyahay qaybta koowaad ibaro waan ku barane. qaybtan waxaan isticmaalayaa 39 qodob intaana gabadha guursanin. waadna arki doontaan qodobada muhiimka ay leeyihiin. waxaan ku bilaabayaa, waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira. gabadhi baa shukaansanaysaa, wiilkii gabadhi baa shukaansanaysaa, wiilkuna gabadhi buu shukaansanayaa. waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira ee runta ah. waxaa kaloon aan rabi lahaa inaadan waxba iga qarinin, daacadna ii noqoto, waayo waa arrin la xidhiidha mustaqbalka dhow iyo midka dheerba. waxaan kaa codsanayaa inaad iiga soo jawaabto su'aalahan hoos ku xusan adigoo aad iyo aad u mahadsan. saasay u qorantah ayadoo Soomaali ah. su'aasha koowaad gabadh yahay, su'aasha koowaad wiil yahow, waxaan ku weydiinayaa kow
maxaad u malaysaa su'aasha koowaad inay noqonaysa waan ku jeclahay beerka i xanuunaya ma aha say dhallinyarada isku shukaansadaan xalay ma seexanin kaale i seexi ma aha macnuhu qodobka koowaad ma idiin sheegaa xiriirka aad la leedahay cibaadada allah gaar ahaan salaada waa sidee su'aal waaye inaynay taariku salaabad aan ilaahay ku xidhnayn reer ma dhisi kartaa ii jawaaba reer ma dhisi kartaa maya ma dhisi karto kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad qaabka ay kuu arkaan bulshada aad la nooshahay waa noocee fiiri bulshadu qaab bay kuu arkaan adigana qumanahaga qoorta kugu jira ninka iskugu fiican baa tahay adugu waxaad leedahay nin kaa fiican maba jiro laakiin dadku qaab kaley kuu arkaane ogow dadku siday kuu arkaan qof aamusan oo dadka ka go'an oo aan hadlaynin maxaad la aamusantahay tolow ma doqonnimaad la aamusantahay mise caqli waxaan ahay qof bulshaawi ah oo dadka dhex gala hadhowta guriga sirtiisa seed u qarin doontaa waxaan rabaa inay gabadhu ogaato ama wiilku ogaado qofkani bulshada dhexdeeda sidee buu ku yahay jawaasiis ii shaqaysana waan leehay anugu oo waxaad ii sheegtay adigu waan kuu dabamarayaa dadkaan soo weydiinayaa qofkani waxa uu yahay qodobka saddexaad maxaa balwad kuu ah oo aad xiisaysaa ii sheeg ma kubad baad jeceshahay ma filimaad jeceshahay gabadhay ma sheekadaad jeceshahay yaa mabaqaad baad cuntaaba geed khadhaarkaa miyaad cuntaa yaa maxaad jeceshaha balwad ku ah waa in laga soo jawaabaa mawduuca ii baro waan ku baran baa la yidhaahdaa xataa odayga 70 jirka meesha fadhiya waa anfacaysaa ee islaantiisu isfahmi laayihiin midka dhallinyaradana waa anfacaysaa mid kastoo dhaarsan bay anfacaysaa waxaa la yidhahdaa ii baro waan ku barane maxaa balwad ku ah oo aad xiisaysaa waa qodobka saddexaad may la socotaan qodobka saddexaad qodobka afraad xiriirka aad la leedahay waalidka inteed ku qiyaasi kartaa qof waalidkii soo habaaray adiga ma ku dhaqi karaa yaa gabadh habaaran oo lagu tufay iyo nin habaaran oo hahay la yidhi ma reer mu dhaqi karaa waa habaaran yahay marka waa inaad ogaato qofkaad la noolaanaysa waalidkii siduu ku yahay reero badan oo burburay ma oga waxay la burbureene wiil habaaran baa meesha ku jira gabadh habaaran baa meesha ku jirta cadhadii allah samada kaga socota markaasuu leeyahy reerkii baan ku degi la'ahay seed ugu degi hooyadaa baan ku habaartay oo aabbahaa baan ku habaaray haddaba qodobka araad wuxuu leeyahay xiriirka aad la leedahay waalidka intee in la eg buu qodan yahay hoos jira intee in la eg buu qodan yahay qodobka shanaad wuxuu leeyahay markaad go'aan qaadanayso qaabkeed u qaadataa markaad go'aan qaadanayso seed u qaadataa nin labaclabaca gabadh labaclabacada oo aan go'aan qaadan karin weliba raggaya ragga nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso dhallinyar ma maqlaysaan nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso laabudda waa inaad tahay nin go'aankiisa ku kalsoon markaad dadka la tashato kadib qodobka lixaad wuxuu leeyahay fasaxyada iyo xilliyada firaaqada maxaad u isticmaashaa wakhtiyaalkaad firaaqada tahay maxaad qabataa waa muhiim waxaan rabaa inaan ogaado talow markaan fasaxa nahay ma anaad igu mashquuli doontaa ma anigaad meel igeyn doontaa ma anaad turki igeyn doontaa ma anaad diyaaro isaari doontaa ma anaa ila sheekaysan doontaa ma anaad maqaaxiyaa igeyn doontaa ma anigaa suuq ila soo wareegido aniga carruurtayda mise meel kale kaaga caddahay fasax baana gabadhan waa sidoo kale xilliyada aad fasaxa tahay maxaad qabataa waa qodobka lixaad ogaada qodobka toddobaad dhegaysta ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii sheeg hadday 10 meelood lagaa soo qalay oo adiga dhanba jirkaagii karkaran yahay oo hadhowta markaad guriga igu soo gasho aad ii dhimaato uu nin maad moodo maro la tolay hadhowta xaggeed aadi sooma haddii markii guriga aad soo gasho ayba soo baxdaba ninkani inuuba sonkor midda ugu sarraysa iyo dhiikar meedka ugu sarreeyaa
soma ilaahay na caafiyo ya gabadh baa nin guriga loo geeyo habeenkii saa guriga loo gelay bay suuxday dhakhtarka markii la geeyay waxa la gabadhana asmay qabtayba maxaad u sheegi weyday asmayna qabtay in habeenkii arooska waa suuxday cudurradu waa wax jiri kara dhalinyaro su'aal baad weydiinayaan run iga jawaaba markaad gabdhaha shukansanaysaan su'aalan ma weydiisaan beerka ay xanuunaya soma taasaad ku mashquushaan su'aalahan waa su'aalo muhiima weeye si fiican u dhegaysta waana waxa uu guryaha nooga dumay ogaada ma jiraan xanuuno khaasa oo aad qabto ii soo sheeg qodobka 8aad waad la yaabi doontaan ma khuurisaa habeenkii maxaa dhacay haddayba anigu aan ahay dadka markay hurdadu ka tagto aan seexan karin mar labaad adiguna khuuradaada deriska laga maqlayo soo jeedkaa badan hadhowta xanuun baa igu dhalan doona iisii sheeg marka inaad khuuriso oo khuuro weyn aad leedahay khuurada quruxda badan lama sheegayo xaragada khiiq ah khuurada waxaa sheegaya maxaa la yidhahdaa deriska iyo colka iyo markay yimaadaan haddaa ninkaa laftiisa khuurada weyn colaad markay dhacdo waxaa weeye asaga ragga lagu hordinaya saa daraaddeed waa inaad dhahdo gabadhay ma khuurisaa laakiin khuurada ragga u badan sooma qodobka 9aad dhegaysta cuntada nooceeda ugu jeceshahay adeer ninkaagan indhaha waa weyn haddaada gabadha weydiinin cuntada aad jeceshahay sidaan horay u sheegnay wax badan ku aynay bariis baasto dalacbilaash haye dhowr jeer waan ku celinay hadhowta maxaa dhacaya haweenku inay dhahaan sheekhow nimanka Soomaaliyeed jacayl waxba kama yaqaanaan sax waa nimay ayadu toogatay waa nimad adigu dishay gabdhaha waxaan ku dhahaa ragga waa la nafaqeeyaa fiiriyo su'aal haddaan gabdhaha way iga fog yihiin aan hal su'aal weydiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oo gabadh walba aan ku dhaho caruurta guriga joogta yaa caruur ilmahe ugu yar yaa caruurta guriga ku joogta ilmahe ugu yar haween badan baan weydiiyey islaam walba waxay leedahay wiil baa iigu yar gabadh baa iigu yar aamus ninkaa kugu yar ilmaha waxa ugu yar waa ninka weliba waa idiin sheegayaa dhegaysta qofka ugu dambeeye la seexiye ee sariirta la geliye ee go'a la huwiye ee caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runta ii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysta dumarkow raggiina dhaqaalaysta oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaama u soo masaajayn marka aduu kugu soo daalee ninkuna waa inuu masaajka barto xaaskiisu masaajay isu masaajeeya marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsaradu iyo olyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga hala dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga Soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan nin aad dishay jacayl muxuu ka garan allihii allah cuntada nooceed ugu jeceshahay haddaba ninkaagu sii sheeg gabadhuna ha weydiiyo qodobka 10aad maxaa kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo allahu akbar qodobka waan ku celinayaa leesh lianna waa qodob muhiima war haddaan xanaaqo haddii aad xanaaqdo war qorta dee darsiga wadhigan sheekhaas cimaamadda cad khayr allah siiyo qor waa muhiime jazaaka allah khayran hore baan u idhi ninka jacayl dareemaya ha yimaado saas maaha gabdhahana waa saas iyagana waxaan doonayaa marka inaan dhaho cuntada maxaad kaa xanaajiya
si aan kaaga ilaaliyo hadda iisii sheeg waxaad wada aniga waxaasan ka xanaaqaa oo waxaasan ka liis dheer u soo qor gabadha liis u soo qor aniga waxaasan ka xanaaqaa iga ilaali gabadhana ha dhahdo nimo wiil yahow anigana waxaasan ka xanaaqaa ilaahay baa idinku dheeriyey caawa haddaad tagto maxaa la saydaliyada ama farmarsiga markaad tagto farmashiyaha oo aad daawo ka soo gadato soo warqad lama socoto warqaddaasaad u isticmaali lahayd soo saas maaha ma idinla tahay yaa wax walba waxaa loo sameeyey nidaam masaajidada nidaam lagu kala socday leeyihiin reer dhan oo dhismaya wuxuu ku kala socdo ma lahan ma saasan qiyaasaynaa laa reerku wuxuu ku kala socdu leeyahy horta seen kuu aqaanaa haddaad xanaaqdo waxaad ka xanaaqdo seen ku garanaya horta anugu waa su'aal da'weyne yaa ii sheegi kara waxaad ka xanaaqdo ii sheeg waxaad ka xanaaqdo adigana soo gudb waxaad ka xanaaqdo waa qodobka tobnaad weeye waa muhiim meel ku qorto qodobka tobnaad qodobka tobnaad haddii aad xanaaqdo maxaa daawo kugu ah oon kugu dejiyaa waad xanaaqdo soo maaha gabadhi baa waxay tidhi haddaan xanaaqo sariirtaan galaayo waan isduuduubaa waan seexdaa laylama hadlo sax daa ha isduuduubtee ha la hadlina daa waxay tidhi haddaan xanaaqo naqaskaan iska sii daayaa waan qayliyaa adna waynaad aamustaa markay islaamtu xanaaqdo aamus dariishadaha soo xidh tiifiga dami carruurtii adiga beerbeer u seexda isdhegaysta islaamtu ha qaylido mar xagga ha kuu dhaafto mar xagga ha kuu dhaafto afka abuura ka kiciso ayadaa marka dambe iska kaca ku dhihi leesh li'anna marka hore isku ogeydeen sooma waxay ku degtay waa inta laakiin daddood maxaad la qaylaysaa ifur hal baan kugu furay ii dhammaystir saddexdaan kugu furay maxaad sugaysaan marka maba lays yaqaaneen ninkii baa wuxuu yidhi haddaan xanaaqo waan baxaayo raggaan la soo sheekaystaayo masaajidada iyo maqaaxiyaan tagaayo hadhowta anigoo ubax ku wadaan ku imaanaya iyo shukulaato daa ninka iridda ha u istaagin ha soo carab baaba'ee daa warka ayaa samayn karaa waa ciddan waxaan fahamsan weeye laakiin ma garatay radda reerahni waxay nooga dumayaan waa dadaan weli isbaranin weeye ayib qodobka labiyo labaatanaad ma tahay qof jecel nadaafadda jirka dharka guriga iyo gogoshaba haddaan nadaafadda aan laisku waafaqin haddee guri yaabla ayaa lagu noolaanayaa qodobka 13aad kuweed ugu jeceshahay in la xidhiiriyo ehelka iyo saaxiibbada yaad jeceshahay gurigaaga inay imaadaan saaxiibba ahaan marka laga hadlayo gabadha u sii sheeg saaxiibbo badan baa guryo dumiyey guryo waxaan garanaynaa ay saaxiibbo dumiyeen li'anna lagama wada hadlin gabadhii saaxiibbay la socotaa uusan ninku jeclayn ninku wuxuu la socdaa saaxiibba ayna gabadhu jeclayn war ninkaa ma jeceli qaar baa acazakumullah wax la sheega ma aha barnaamij ila tali la yidhahdoon isticmaalo ayaa waxaa in badan lay weyddiiyaa saaxiibtay ayaa ninkaydii iga shukaansatay haye saaxiibkay fiiri saaxiibka ninkayga saaxiibkii ayaa guriga iigu imaadoo wuu ii hunguriyeeyaa subxaan allah soo waxaa marka hore in bannaanka la marya maaha war guriga yaa saaxiibkoo soo gelaya waa kuma waa qodob isagana aad iyo aad muhiima weyan qodobka 14aad qaabkeed u jeceshahay qaabkeed u jeclaan lahayd inuu arooskeennu u dhaco aroos aan laga wada hadlin waan ku jeclahay waan kaa helay arooskii baa la gaadhi mar alla markii arooska la gaadho waxay leed adeer anigu arooskay waxaan rabaa hotel mate hotel in lagu qato maxaa dhahaa maxay 5 star anigu waxaan rabaa adeerkay oo Canada degan iyo ayayda Ingiriiska degan iyo maxaa la yidhaha abtigay oo halkaa degan inay ka soo qayb galaan haye kooxdii muusikada iyo islaantii buraanburaysay iyo maalinta dhallinyarada iyo maalinta haweenka iyo maalinta siisawootinta ayaa meeqa kharash baa ku baxday ii sheega qodobkan waxaan kaga niqaashi doonaa galabta 6da galabnimo markii la gaadho barnaamij dhallinyarada loogu talagalay bas ah oo magaciisa la yidhaahdo dhallinyarada guurka maxaa ka hortaagan hadday isguursadeenna durba maxay isu furaan ayaan kaga niqaashi doonaa haddii alla yidhaahdo oon jeclay inaad si fiican aad nogala qayb qaadataan haye
arooskeennu qaabkee u dhacayaa anigoon ku guursanin waa inaan ka heshiinaa haddaan ku arko inaad miciyo dhaadheer leedahay waxaan ku leedahay abbaayo duurka gal mid yaroo aan isfahmaynaba imaanayse sax sooma ayib qodobka kale wuxuu leeyahay meherkaagu waa meeqa aye waxaa jira meher la yidhaahdo ii maqashii ma maqasheen ii maqashii ha la yidhaahdo magaaladan oslo la yidhaahdo gabadhii ugu meherka qaalisanayd weeye allahu akbar iigu dhawaaq kolba ima siin dooneen laakiin kaamirada ha ii gasho facebooka ha lagu faafiyo in hablaayo intaa lagu meheriyey shaytaanku sida ugu ciyaaray fiiri galabtan kaga hadli doona haddii alla yidhahdo qodobka 16aad yaad la socotaa oo saaxiibba la tahay aniga saaxiibbadaadaan raba inaan hadhowta kugu qiyaaso dadka aad saaxiibbada la tahay qodobka 17aad waan ku jeclahay maxaa laga wadaa wallaahi cajaa'ib way qodobkan in badan baan maqlaa waan ku jeclahay waan kaa helay beerkay xanuunaya dhiiggaan kuu shubayaa maxaa laga wadaahe aye haddaan weydiiyo ninkaas odayga ah ninkaasaan sheegayaa ninka haddaan su-aasha weydiiyo mise ninkaasaan weydiiyaa maya kaasaan weydiinayaa xaaskaaga markaad leedahay waan ku jeclay maxaa ka wadaa gabadha inteeda guursanin aad leedahay waan ku jeclahay maxaa laga wadaa horta waa in las weydiiyaa war waan ku jeclahay waa in meel la saaraa huhaa weeye waan ku jeclahay waa in meel la saaraa idan su'aalahan oo dhan fiiriya waxay u baahan yihiin jawaab mar dhowna waxaa arki doontaan innagoo intaan weeb u samaynay oon su'aalahan jawaabo ku soo qornay qofku intuu jawaabahan galo su'aalahan uu qoro kadibna warqad kuu soo baxaysa oo ku dhahaysa adeer weli maa guursan kartidee dib ugu noqo koorsaa lagu siinayaa gabadha ordaysaale nin baan guursanayaa adeer horta bal shuruuddan soo buuxi nin kale horta waan guursanayow horta bal shuruuddan soo buuxi okay yaad la socotaa waan ku jeclay maxaa laga wadaa qodobka 18aad haddii uu yimaado khilaaf sideed u xallin doontaa qaabkee goobtee xilligee waa muhiim jiddan wey malaa'ig isma guursanin waxay isguursadeen waa bashar caadi ah haddaba haddaan isguursanno khilaaf imaado waxaan rabaa inaan ogaado khilaafka si aad u xallin doonto goobtaad u dooran doonto qolka jiifka xol laguma xalliyo qolka jiifka hoolo waaweyn oo kale u yaalla dadka qaar baa waxay ku xisaabtaan qolka jiifka hadday hadalka maxaad ii lahayd markaasaa hurdadii ninkii ka tegaysaa oo gabadhii ka tegaysaa markaasuu xagga isu gedinaya war qolka jiifka nidaam baa loogu talagalay dhalinyaro xaggee wax lagu xalliyaa fadhigaa lagu xalliyaa goobtee lagu xalliyaa xilligee la xalliyaa ma markaan xanaaqsanahay ma markaan shaqada ka soo galo ma markaan daallanahay ma markuu madaxii xanuunayo ma markay goormaa la xalliyaa saacaddee la xalliyaa meeshee lagu xalliyaa warkaas su'aalihiinta alawey adeer ninka qoslayow shaqada arida kuu taallaa kajiiso qodobka 19aad qaabkeed u fahamsan tahay barbaarinta ubadka adeer carruur hadduu allana siiyo qaabkeed u fahamsan tahay meeqa kitaab baad soo akhriday meeqa dawraad soo qaadatay meeqa muxaadaraad soo dhegaysatay horta ilmaan dhalayaa ma ahane horta ilmo in la barbaariyo maxaad u fahamsan tahay qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba adeer reerkani waa dawlad reerkan dawladda ah dhaqaalihiisu xagee ka soo gelayaa habeen dhoweyd waxaa lay weydiinayey sheekhow waa ninaya xaas baan ku qabaa ameerika midna soomaaliyaan ku qabaa tii ameerika joogtay waxay leedahay waxba ha shaqaynina guriga noo joog adeer haddaadan shaqaynin maxaad qabanaysaa ma islaanta war annagaa wax aragnay hadda ka hor Soomaaliya xoolaha dumarka ruwaaba ka sheeg Soomaalida maqal xoolaha dumarka ruwaaba ka calacalay ruwaaba neef ari aqaaday islaantu markay artay ruwaaba waxa Allah waa kii neefkaygii cunay ruwaaba wuxuu yiri wallah haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa maba cuneen adigana markaas doonaysaa inaad maxaa la yiraahdaa aad haweenka waxooda cunto war haweenka waxooda loo daayo oo hala shaqaysto waa muhiim qodobka marka qaabkee qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa aan isku waafaqno qodobka 21aad mustaqbalka fog
xaggeed jeclaan lahayd inaad ku noolaato adiga iyo xaaskaagaba maxaa mustaqbal noo ah waa qodobka 22aad weeye qodobka 22aad qalbiga halkan ii soo jeesta marka qalbiga ii soo jeesta wax yar ii soo jeesta qalbiga xaaskaagu dhash ninkaagu hadduu isxidho qalbiga ninkaagu ama gabar yahay ama nin yahow qalbiga xaaskaaga hadduu isxidho maxaa lagu furaa meeqa furaad haysataa yaa meeqa furaa qalbi isxidhay in lagu furo meeqaad u haysataa adeeradaa su'aasha lagaa rabaa aye qalbiga waa isxidhay furaan u baahannahay marka haddaadan furan aqoonin qalbiga adeer iska lugee haddee iska lugee qalbi isxidhay wixii lagu furi lahaa waa in la helo weeyaan qodobka 23aad maxaa kobciya allah kan waa cajaa'ib dhegaysta kan indhahaas ku qabtaan mar caadi maaha kan khatar weeye wuxuu yidhi maxaa kobciya jacaylka kana dhiga beer qurux badan iyo biyaha badda oo kale yaa salaam haye waxaa suuraysataa beer qurux badan iyo biyaha badda jacayl ahoo adiga xaggaa ka soo burqanaya haye weli suuqa lagu gado ma tagtay biyaha jacaylka lagu waraabiyo weli ma soo iibsi jacaylka maxaa lagu waraabiyaa dhulka maxaa waraabiya biyo soo maaha ayaa jacaylka maxaa waraabiya adu ma is weydiisa jacaylka in la waraabiyo malab ah yaa jacaylka maxaa waraabiya waa inaad biyaha noocaas raadisaa qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku raacsannahay oo naga dhaxeeya horta su'aal aniga adiga maxaa naga dhaxeeya ayuutan wada gelaynaa soo moogid shaloongan wada gelaynaa sooma maxaa naga dhaxeeya wax walba soo nagama dhaxayn karo haddee waad yaabaysaan wax naga dhexeeya haddaa idiin sheego xataa candhuufta naga dhaxaysa allah nabigu intuu biyo cabbo oo saa u wareejiyo ay caaisho saa u wareejiso ayaa meeshuu nabigu ka kabaday ka kaban jirta allah keligaa waad dhali weyday anna keligay waan dhali waayey shahwadaa naga dhaxaysa haddee ma waxaa naga dhaxaynin baa jira adi keligaa ma dhali kartaa anigu keligaa ma dhali karaa saan shahwada iskugu darsannay wax walbaa nooga dhaxeeya idan qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku darsannaa oo naga dhaxeeya qodobka 25aad reerka maamulkiisa yaa xaq u leh kan dhagaha u fura reerka maamulkiisa yaa xaq u leh reerka yaa madaxweyne ka ah war heedhaha gaariga yaa wadaya tareenka yaa wadaya diyaaradda yaa wadaya ma gabadhaa wadda mise ninkaa wada mise waan wada wadnaa bal shaydaanka iska naar horta soo saas maaha idan waa su'aal qaangaadha weeye su'aashaan waa qaangaadh la socda 15 sanay dhaaftay reerka maamulkiisa yaa xaq u leh ii soo sheeg wareedhe gabadha intaana shukaansanayaba haddaanan arrintanana ka wada hadlin haddii hadhowta maxaa dhacaya yaa waad isiin doonaa waxaasoo dhan waa ka niqaashi doontaan insha allah qodobka 26aad wada tashiga lamaanaha maxaa laga wadaa aan wada tashanno maxaa laga wadaa aan wada tashanno ayib aan wada tashanno maxaa laga wadaa yaa ka jawaabi kara aan wada tashanno maxaa laga wadaa waa in la yaqaano sidii loo wada tashan lahaa reeraheenna dhibaatada ugu weyn waa maxay fannu idaarati alkhilaaf baana garanayn khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa soomaali o dhan baa garan la sooma soomaali o dhan baad hadda garan la khilaaf baa dhacay soomaha war seen u maaraynaa xataa waa la garan la'yahay qodobka 26aad qodobka 27aad haddii ay musiibo dhacdo qaabkeed oo la dhaqmi lahayd abaar baa dhacday alaad baa dhacday xanuun baa dhacay imtixaan baa dhacay sideed u maarayn lahayd qodobka 28aad qodobka waa muhiima dhegaysta albaabka markaan ka soo galo seedii qaabili lahayd haye wejigee hadalkee ficilkee ayaad ii qaabil lahayd ninka guriga soo galayna wejigiisa waa noocee markuu guriga soo gelayo oo qodob muhiima wey qodobka 29aad marti iyo mudane sideed u maamuli doontaa marti waa dadka caadiga mudanahuna waa dadka qaraabada siiya maalan
seed u maamuli doontaan marti iyo mudane qodobka soddonaad ballanta kowne cadaaladda xuquuqda runta iyo dareenka mas'uuliyadeed maxaad u taqaannaa waxaan rabaa inaan ogaado ballan maxaad u taqaan cadaalad maxaad u taqaan xuquuq maxaad u taqaan run maxaad u taqaan mas'uuliyad maxaad u taqaan labada qof ayagoon isguursanin waa inay masaa'ilka imtixaan ay ku galaan si ay go'aan uga gaadhaan ama ninku go'aan uga gaari karo gabadhan ma tii kugu habboonaydbaa wiilkani ma kii kugu habboonaabaa dhallinyaro mila socotaan si fiican su'aalahan waa muhiim waan sheegay qofka raba haddaan siinayaa laakiin ka soo shaqee inaad ka soo shaqaysaa lagaa doonayaa qodobka 31 ma tahay qofkii qof wixii loo geysto aan iloobin cuqdadlow miyaa tahay waad aragteen hadda reer 30 sano isqabay baad arrintooda gelaysaa fiiriya reer 30 sano isqabay ayaa arrintooda gelaysaa markaasay leedahay shabadaan waagaan deganayn goormay ahayd waayo wax laga soo tegey ayay ku leedahay waxa ninkiina wuxuu leeyahay hadalkaad waagaa ay tidhi dikru ljafaa bacda safaa jafaa waa sidaas weeye qodobka 32 sirta guriga noocad u taqaanaa sirta guriga noocad u taqaan sirta guriga ma la fahmo culimadaay inteed u taqaanaa laakiin annaga sirta guriga waxaan u naqaanaa maalan hadal la bixiyo soo maaha maya intaa keliya maaha haddaan arko ninkii oo meelaha la iskugu imaado ku daahaya oo jecel inuusan gurigiisa aadin ninkaas sir buu bixiyey sirtuu bixiyey waa maxay guriga kuma faraxsana islaantii inuu ka seexatuu rabaa islaantu markay seexato inuu guriga soo galuu rabaa soo saas ma sirta siyaalo badan baa loo bixiyaa sirta guriga noocad u taqaan qodobka 33aad ma ii sharxi kartaa tiirarka uu ku taagan yahay reerka wanaagsan reer wanaagsan baa jira meeqa tiir buu ku taagan yahay ii soo sheeg bal islaamku meeqa tiir buu leeyahay soo shan mala soo islaamku shan tiir kuma taagno su'aal guri wanaagsan meeqa tiir buu u baahan yahay haddaana ila aqoonin inta tiira gurigu ku taagan yahay seen u dhisanaynaa guri baad rabtaa inaad dhisato intaasoo tiir ka maqan yihiin oo dumaya marka على طول لكم كل عيان قلبك صدني أفراد هدان كلك قلبك صدني أفراد هدي مسكدة يا قلبك مسواس كدر أصلا مرة عيان أوكي قلبك صدني أفراد هدان كلك جورسد أنا كتشعل ما حاسة مين لهيد هذا أنا كتشعل معنا إلى ذا يقول هواك وحيو فهمان هبل وجورسد وين دعي ماي تاكم الله أنا كتشعل هدان كلك جورسد ما حاسة مين لهيد أدون جورسين كلا سو هذا هو مهم أنا قلت جورسين من أرنت أمل إسرائيل النبي الله تبارك وتعالى قلبك صدني الشنات رالي مكتهاي إن يحاسك أبو شقيسته أما وحبر شلا سي وضته إن عليكم أنفعيس الصومة سؤالوا أبي أفر بديهين إلا وحنكو ختمة يا هدان قلبك صدني اللحاد هدان كاد البضو inaad u soo guurto magaalada ama wadanka aan deganahay maxaad dhihi lahayd ana wadanka aan deganahay qodobka 37 waa idin sheegay waa qodobka ugu dambeeyay mid ka horeeyay 37 hadaa yidhi Soomaa waa 38 طيب qodobka 17 waxbarashada dhanka diinta iyo maadiga halkeed kala maraysaan maxaa taqaanaa xagga cilmigaaga qodobka 38aad ma jeceshahay wax akhriska hadduu sababka waxba akhriin sidee wax loo horumarin karaa qodobka 39aad maxaa u dhaxeeya qabiil iyo qabaliyad keedsa ku dhaqantaa allah yani hadduusan ninku labadaa kala garanayn oo nin uun qabiil ka buuxo gabadhii uu gacanta u galo ama gabadh reerkoodaba haddii la soo qaado ayada dhanba reerka waa isdilayaan gebagabadii gunaanadka iyo gebagabadii fiiro gaara ugu dambayntii waxaan ilaahay kaaga baryaa qof walba ka kale ku leh inuu kuu fududeeyo su'aalahan jawaabtooda waxaana diyaar kuula ah insha Allah inaan kaaga jawaabo wixii aad soo weydiiso wada shaqayn wacan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh joogta ilmaha ugu yar
haween badan baan weydiiyey islaam walba waxay leedahay wiil baa iigu yar gabadh baa iigu yar aamus ninkaa kugu yar ilmaha waxa ugu yar waa ninka weliba waa idiin sheegayaa dhegaysta qofka ugu dambeeye la seexiye ee sariirta la geliye ee go'a la huwiye ee caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runta ii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysta dumarkow raggiina dhaqaalaysta oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaama u soo masaajayn marka aduu kugu soo daalee ninkuna waa inuu masaajka barto xaaskiisu masaajay isu masaajayn marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsaradu iyo olyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga hala dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan nin aad dishay jacayl muxuu ka garan allihii alla cuntada nooceed oogu jeceshahay haddaba ninkaagu isi sheeg gabadhuna ha weyddiiyo qodobka tobnaad maxaa kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo allahu akbar qodobka waan ku celinayaa leesh li'anna waa qodob muhiima war haddaan xanaaqo haddii aad xanaaqdo war qorta dee darsiga anigan sheekhaas cumaamadda cad khayr allah siiyo qor waa muhiime jazaaka allah khayran hore baan u idhi ninka jacayl dareemaya ha yimaado saas maaha gabdhahana waa saas iyagana waxaan doonayaa marka inaan dhaho cuntada maxaad kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo hadda iisii sheeg waxaad wadaa aniga waxaasaan ka xanaaqaa oo waxaasaan ka liis dheer u soo qor gabadha liis u soo qor aniga waxaasaan ka xanaaqaa iga ilaali gabadhana ha dhahdo nimo wiil yahow anigana waxaasaan ka xanaaqaa ilaahay baa idinku dhaariyey caawa haddaad tagto maxaa la saydeliyada ama farmarsiga markaad tagto farmashiyaha oo aad daawo ka soo gadato soo warqad lama socoto warqaddaasaad u isticmaali lahayd soo saas maaha ma idinla tahay yaa wax walba waxaa loo sameeyey nidaam masaajidada nidaam lagu kala socday leeyihiin reer dhan oo dhismaya wuxuu ku kala socdo ma lahan ma saasaan qiyaasaynaa laa reerku wuxuu ku kala socdu leeyahy horta seen kuu aqaanaa haddaad xanaaqdo waxaad ka xanaaqdo seen ku garanaya horta anugu waa su'aal da'weyne yaa ii sheegi kara waxaad ka xanaaqdo ii sheeg waxaad ka xanaaqdo adigana soo gudb waxaad ka xanaaqdo waa qodobka tobnaad weeye waa muhiim meel ku qorto qodobka tobnaad qodobka tobnaad haddii aad xanaaqdo maxaa daawo kugu ah oon kugu dejiya waad xanaaqdo soo maaha gabadhi baa waxay tidhi haddaan xanaaqo sariirtaan galaayo waan isduuduubaa waan seexdaa laylama hadlo sax daa ha isduuduubtee ha la hadline daa waxay tidhi haddaan xanaaqo naqaskaan iska sii daayaa waan qayliyaa adna waynaad aamustaa markay islaamtu xanaaqdo aamus dariishadaha soo xidh tiifiga dami carruurtii adiga beerbeer u seexda isdhegaysta islaantu ha qaylido mar xagga ha kuu dhaafto mar xagga ha kuu dhaafto afka abuura ka kiciso ayadaa marka dambe iska kaca ku dhihi leesh li'anna marka hore isku ogeydeen sooma waxay ku degtay waa inta laakiin daddood maxaad la qaylaysaa ifur hal baan kugu furay ii dhammaystir saddexdaan kugu furay maxaad sugaysaan marka maba la isyaqaaneen ninkii baa wuxuu yidhi haddaan xanaaqo waan baxaayo raggaan la soo sheekaystaayo masaajidada iyo maqaaxiyaan tagaayo hadhowta anigoo ubax ku wadaan ku imaanaya iyo shukulaato daa ninka iridda ha u istaagin ha soo carab baaba'ee daa warka ayaa samayn karaa waa ciddan waxaan fahamsan weeye laakiin ma garatay radda reerahni waxay nooga dumayaan waa dadaan weli isbaranin weeye ayib
qodobkooyi labiyo labaatanaad ma tahay qof jecel nadaafadda jirka dharka guriga iyo gogoshaba haddaan nadaafadda aan laisku waafaqin haddee guri yaabla ayaa lagu noolaanayaa qodobka 13aad kuweed ugu jeceshahay in la xidhiidhiyo ehelka iyo saaxiibbada yaad jeceshahay gurigaaga inay imaadaan saaxiibba ahaan marka laga hadlayo gabadha u sii sheeg saaxiibbo badan baa guryo dumiyey guryo waxaan garanaynaa ay saaxiibbo dumiyeen le'anna lagama wada hadlin gabadhii saaxiibbay la socotaa uusan ninku jeclayn ninku wuxuu la socdaa saaxiibba ayna gabadhu jeclayn war ninkaa ma jeceli qaar baa acazakumullah wax la sheega ma aha barnaamij electri la yidhahdoon isticmaalo ayaa waxaa in badan lay weyddiiyaa saaxiibtay ayaa ninkaydii iga shukaansatay haye saaxiibkay fiiri saaxiibka ninkayga saaxiibkii ayaa guriga iigu imaadoo wuu ii hunguriyeeyaa subxaan allah soo waxaa marka hore in bannaanka la marya maaha war guriga yaa saaxiibkaoo soo gelaya waa kuma waa qodob asagana aad iyo aad muhiima weeyaan qodobka 14 halkan ii soo jeesta marka qalbiga ii soo jeesta wax yar ii soo jeesta qalbiga xaaskaagu dhash ninkaagu hadduu isxidho qalbiga ninkaagu ama gabar yahay ama nin yahow qalbiga xaaskaaga hadduu isxidho maxaa lagu furaa meeqa furaad haysataa yaa meeqa furaa qalbi isxidhay in lagu furo meeqaad u haysataa adeeradaa su'aasha lagaa rabaa aye qalbiga waa isxidhay furaan u baahannahay marka haddaadan furan aqoonin qalbiga adeer iska lugee haddee iska lugee qalbi isxidhay wixii lagu furi lahaa waa in la helo weeyaan qodobka 23aad maxaa kobciya allah kan waa cajaa'ib dhegaysta kan indhahaas ku qabtaan mar caadi maaha kan khatar weeye wuxuu yidhi maxaa kobciya jacaylka kana dhiga beer qurux badan iyo biyaha badda oo kale yaa salaam haye waxaa suuraysataa beer qurux badan iyo biyaha badda jacayl ahoo adiga xaggaa ka soo burqanaya haye weli suuqa lagu gado ma tagtay biyaha jacaylka lagu waraabiyo weli ma soo iibsi jacaylka maxaa lagu waraabiyaa dhulka maxaa waraabiya biyo soo maaha ayaa jacaylka maxaa waraabiya adu ma is weydiisa jacaylka in la waraabiyo malab ah yaa jacaylka maxaa waraabiya waa inaad biyaha noocaasa raadisaa qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku raacsannahay oo naga dhexeeya horta su'aal aniga adiga maxaa naga dhexeeya ayuutan wada gelaynaa soo moogid shaloongaan wada gelaynaa sooma maxaa naga dhexeeya wax walba soo nagama dhaxayn karo haddee waad yaabaysaan wax naga dhexeeya haddaa idiin sheego xataa candhuuftaa naga dhaxaysa allah nabigu intuu biyo cabbo oo saa u wareejiyo ay caaisho saa u wareejiso ayaa meeshuu nabigu ka kabaday ka kaban jirta allah keligaa waad dhali weyday anna keligay waan dhali waayey shahwadaa naga dhaxaysa haddee ma waxaa naga dhaxaynin baa jira adi keligaa ma dhali kartaa anigu keligaa ma dhali karaa saan shahwada iskugu darsannay wax walbaa nooga dhaxeeya idan qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku darsannaa oo naga dhaxeeya qodobka 25aad reerka maamulkiisa yaa xaq u leh kan dhagaha u fura reerka maamulkiisa yaa xaq u leh reerka yaa madaxweyne ka ah war heedhaha gaariga yaa wadaya tareenka yaa wadaya diyaaradda yaa wadaya ma gabadhaa wadda mise ninkaa wada mise waan wada wadnaa bal shaydaanka iska naar horta soo saas maaha idan waa su'aal qaangaadha weeye su'aashaan waa qaangaadh la socda 15 sanay dhaaftay reerka maamulkiisa yaa xaq u leh ii soo sheeg wareedhe gabadha intaana shukaansanayaba haddaanan arrintanana ka wada hadlin haddii hadhowta maxaa dhacaya yaa waad isiin doonaa waxaasoo dhan waa ka niqaashi doontaan insha allah qodobka 26aad wada tashiga lamaanaha maxaa laga wadaa aan wada tashanno maxaa laga wadaa aan wada tashanno ayib aan wada tashanno maxaa laga wadaa yaa ka jawaabi kara aan wada tashanno maxaa laga wadaa waa in la yaqaano sidii loo wada tashan lahaa reeraheenna dhibaatada ugu weyn waa maxay
fannu idaarati alkhilaaf baana garanayn khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa soomaali o dhan baa garan la sooma soomaali o dhan baad hadda garan la khilaaf baa dhacay soomaha war seen u maaraynaa xataa waa la garan la'yahay qodobka 16aad qodobka 17aad haddii ay musiibo dhacdo qaabkeed oo la dhaqmi lahayd abaar baa dhacday alaad baa dhacday xanuun baa dhacay imtixaan baa dhacay sideed u maarayn lahayd qodobka 18aad qodobka waa muhiima dhegaysta albaabka markaan ka soo galo seedii qaabili lahayd haye wejigee hadalkee ficilkee ayaad ii qaabil lahayd ninka guriga soo galayna wejigiisa waa noocee markuu guriga soo gelayo waa qodob muhiima wey qodobka 19aad marti iyo mudane sideed u maamuli doontaa marti waa dadka caadiga mudanahuna waa dadka qaraabada siiya maalan sideed u maamuli doontaan marti iyo mudane qodobka 30aad ballanta kowdhe cadaaladda xuquuqda runta iyo dareenka mas'uuliyadeed maxaad u taqaannaa waxaan rabaa inaan ogaado ballan maxaad u taqaan cadaalad maxaad u taqaan xuquuq maxaad u taqaan run maxaad u taqaan mas'uuliyad maxaad u taqaan labada qof ayagoon isguursanin waa inay masaa'ilka imtixaan ay ku galaan si ay go'aan uga gaadhaan ama ninku go'aan uga gaari karo gabadhan ma tii kugu habboonaydbaa wiilkani ma kii kugu habboonaabaa dhallinyaro mila socotaan si fiican su'aalahan waa muhiim waan sheegay qofka raba haddaan siinayaa laakiin ka soo shaqee inaad ka soo shaqaysaa lagaa doonayaa qodobka 31aad ma tahay qofkii qof wixii loo geysto aan iloobin cuqdadlow miyaa tahay waad aragteen hadda reer 30 sano isqabay baad arrintooda gelaysaa fiiriya reer 30 sano isqabay ayaa arrintooda gelaysaa markaasay leedahay shabadaan waagaan deganayn goormay ahayd waayo wax laga soo tegey ayay ku leedahay waxa ninkiina wuxuu leeyahay hadalkaad waagaa i tidhi dikru ljafaa bacda safaa jafaa waa sidaas weeye qarin doontaa waxaan rabaa inay gabadhu ogaato ama wiilku ogaado qofkani bulshada dhexdeeda sidee buu ku yahay jawaasiis ii shaqaysana waan leehay anugu oo waxaad ii sheegtay adigu waan ku dabamarayaa dadkaan soo weydiinayaa qofkani waxa uu yahay qodobka 3aad maxaa balwad kuu ah oo aad xiisaysaa ii sheeg ma kubad baad jeceshahay ma filimaad jeceshahay gabadhay ma sheekadaad jeceshahay yaa mabaqaad baad cuntaaba geed kharaarkaa miyaad cuntaa yaa maxaad jeceshahay balwad kuu ah waa in laga soo jawaabaa mawduuca ii baro waan ku baran baa la yidhaahdaa xataa odayga 70 jirka meesha fadhiya waa anfacaysaa ee islaantiisu isfahmi laayihiin midka dhallinyaradana way anfacaysaa mid kastoo dhaarsan bay anfacaysaa waxaa la yidhahdaa ibaro waan ku barane maxaa balwad kuu ah oo aad xiisaysaa waa qodobka 3aad mayla socotaan qodobka 3aad qodobka 4aad xiriirka aad la leedahay waalidka inteed ku qiyaasi kartaa qof waalidkii soo habaaray adiga ma ku dhaqi karaa yaa gabadh habaaran oo lagu tufay iyo nin habaaran oo hahay la yidhi ma reer bu dhaqi karaa waa habaaran yahay marka waa inaad ogaato qofkaad la noolaanaysa waalidkii siduu ku yahay reero badan oo burburay ma oga waxay la burbureene wiil habaaran baa meesha ku jira gabadh habaaran baa meesha ku jirta cadhadii allah samada kaga socota markaasuu leeyahy reerkii baan ku degi la'ahay seed ugu degi hooyadaa baan ku habaartay oo aabbahaa baan ku habaaray haddaba qodobka oraad wuxuu leeyahay xiriirka aad la leedahay waalidka intee in la eg buu qodan yahay hoos jira intee in la eg buu qodan yahay qodobka 5aad wuxuu leeyahay markaad go'aan qaadanayso qaabkeed u qaadataa markaad go'aan qaadanayso seed u qaadataa nin labaclabaca gabadh labaclabacada oo aan go'aan qaadan karin weliba raggaya ragga nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso dhallinyar ma maqlaysaan nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso laabudda waa inaad tahay nin go'aankiisa ku kalsoon
markaa dadka la tashato kadib qodobka lixaad wuxuu leeyahay fasaxyada iyo xilliyada firaaqada maxaad u isticmaashaa waqtiyaalkaad firaaqada tahay maxaad qabataa waa muhiim waxaan rabaa inaan ogaado talow markaan fasaxa nahay ma anaad igu mashquuli doontaa ma anigaad meel igeyn doontaa ma anaad turki igeyn doontaa ma anaad diyaaro isaari doontaa ma anaa ila sheekaysan doontaa ma anaad maqaaxiya igeyn doontaa ma anigaa suuq ila soo wareegido aniga carruurtayda mise meel kale kaaga caddahay fasax baana gabadhan waa sidoo kale xilliyada aad fasaxa tahay maxaad qabataa waa qodobka lixaad ogaada qodobka toddobaad dhegaysta ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii sheeg hadday 10 meelood lagaa soo qalay oo adiga dhanba jirkaaga karkaran yahay oo hadhowta markaad guriga igu soo gasho aad ii dhimaato uu nin maad moodo maro la tolay hadhowta xaggeed aadi sooma haddii markii guriga aad soo gasho ayba soo baxdaba ninkani inuuba sonkor midda ugu sarraysa iyo dhiikar meedka ugu sarreeyaa soo maaha ilaahay hana caafiyo ya gabadh baa nin guriga loo geeyo habeenkii saa guriga loogu geli bay suuxday dhakhtarka markii la geeyana waxaa lihi gabadhana asmay qabtayba maxaad u sheegi weyday asmay inaad qabto inay habeenkii arooska waa suuxday cudurradu waa wax jiri kara dhalinyaro su'aal baad weydiinayaa run iga jawaaba markaad gabdhaha shukaansanaysaan su'aalaan ma weydiisaan beerka ay xanuunaya sooma taasaad ku mashquushaan su'aalahan waa su'aalo muhiima weeye si fiican u dhegaysta waana waxa uu guryaha nooga dumay ogaada ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii soo sheeg qodobka siddeedaad waad la yaabi doontaan ma khuurisaa habeenkii maxaa dhacay haddayba anigu aan ahay dadka markay hurdadu ka tagto aan seexan karin mar labaad adiguna khuuradaada deriska laga maqlayo soo jeedkaa badan hadhowta xanuun baa igu dhalan doona ii sii sheeg marka inaad khuuriso oo khuuro weyn aad leedahay khuurada quruxda badan lama sheegayo xaragada khiiq ah khuurada waxaa sheegaya maxaa la yidhahdaa deriska iyo colka iyo markay yimaadaan haddaa ninkaa laftiisa khuurada weyn colaad markay dhacdo waxaa weeye asagaa ragga lagu hordinaya saa daraaddeed waa inaad dhahdo gabadhay ma khuurisaa laakiin khuurada ragga u badan soo ma qodobka sagaalaad dhegaysta cuntada nooceeda ugu jeceshahay adeer ninkaagan indhaha waa weyn haddaada gabadha weydiinin cuntada aad jeceshahay sidaan horay u sheegnay wax badan ku celnay beriis baasto dalacbilaash haye dhowr jeer waan ku celinnay hadhowta maxaa dhacaya haweenku inay dhahaan sheekhow nimanka soomaaliyeed jacayl waxba kama yaqaanaan sax waa nimay ayadu toogatay waa nimaad adigu dishay gabdhaha waxaan ku dhaha ragga waa la nafaqeeyaa fiiriya su'aal haddadaan gabdhaha way iga fog yihiine aan hal su'aal weyddiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oon gabadh walba aan ku dhaho carruurta guriga joogta yaa carruur ilmahe ugu yar yaa carruurta guriga kuu فيه ننمو وأمانينا تزيد بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد وأبي دوما وأمي منبع الحب الأكيد كل فرد منهما حقا له قلب ودود جعل الفرحة بين الكل في البيت تسود جعل الرحمة تغشانا كما الظل المديد حبب البذل إلينا فترى الكل يجود فترى الكل يجود بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، أحبكم في الله. horta ilaahay daraaddii baan idinku jeclahay subxaanahu jalla wacala, waana darajo aad iyo aad u sarraysa, waana darajaadka lagu gaadho carshuraxmaan hooskiisa in la hoos harsado. ilaahayna waxaan ka baryaa anigiyo idinkaba inuu kuwaa nagu daro, wejiyadeennana uu naarta ka xoreeyo. qodobka ama mawduuca la qoondeeyey inaan wax ka tilmaamo waa mawduuc aragtidayda aad iyo aad muhiim u ah. waxaa la yidhaahdaa dhismaha qoys wanaagsan ayaa la yidhaahdaa. waxaan jeclaan lahaa oo codsina iga ah, muxaadarada qaab projector aan u soo diyaariyey, laakiin waa laga yargaari waayey in la wada daawado la arko. hase yeeshee waxaan diyaar u ahay qof kasta oo jecel inaan muxaadarada aan siiyo inaan siiyo. USB qofka haysta waan siin karaa, qofka emailkiisa isiiya waan siin karaa. qaybta koowaad ee muxaadarada ee muqadimada ah waxaanse ka sii jeclaan lahaa qofka qalin iyo buug haysta inuu qorto. waxaan u bixiyey kelimadani laba mawduuc bay ka koobnaan doontaa. qaybta koowaad waa qaybta hordhaca ka ah, waana 39 qodob weeye. waxaana la yidhaahdaa ibaro waan ku barane. qaybta labaadna isbarashadaasi wixii ka dhashay oo aan u bixiyey mafaatiixu tafaahumi bayna azawjayn, furayaasha la ysku fahmo lamaanuhu ay isku fahmaan. labadaa qaybood bay ka koobnaan doontaa haddii alla yidhahdo subxaana wa tacaala. marka ciddii xoogaa jacayl dareemaysaa soo fadhiisato. ciddii jacayl yar dareemaysa ama doonaysa inay reer dhisato mustaqbalka, ama xoogaa reerka ka yar hallaysan yahay oo doonaysa hadda inay toosiso, ha soo fadhiisato insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo. hordhaca wuxuu leeyahay qaybta koowaad ibaro waan ku barane. qaybtan waxaan isticmaalayaa 39 qodob intaana gabadha guursanin. waadna arki doontaan qodobada muhiimka ay leeyihiin. waxaan ku bilaabayaa, waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira. gabadhi baa shukaansanaysaa, wiilkii gabadhi baa shukaansanaysaa, wiilkuna gabadhi buu shukaansanayaa. waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira ee runta ah. waxaa kaloon aan rabi lahaa inaadan waxba iga qarinin, daacadna ii noqoto, waayo waa arrin la xidhiidha mustaqbalka dhow iyo midka dheerba. waxaan kaa codsanayaa inaad iiga soo jawaabto su'aalahan hoos ku xusan adigoo aad iyo aad u mahadsan. saasay u qorantah ayadoo Soomaali ah. su'aasha koowaad gabadh yahay, su'aasha koowaad wiil yahow, waxaan ku weydiinayaa kow maxaad u malaysaa su'aasha koowaad inay noqonayso? waan ku jeclahay, beerka i xanuunaya ma aha. say dhallinyaradu isku shukaansadaan, xalay ma seexanin, kaana i seexi ma aha macnu. qodobka koowaad ma idiin sheegaa xiriirka aad la leedahay cibaadada allah, gaar ahaan salaada, waa sidee? su'aal waaye. inaynay taariku salaabad aan ilaahay ku xidhnayn reer ma dhisi kartaa? ii jawaaba, reer ma dhisi kartaa? maya, ma dhisi karto. kaasi waa qodobka koowaad. qodobka labaad, qaabka ay kuu arkaan bulshadu, qaabka ay kuu arkaan bulshada aad la nooshahay waa noocee? fiiri, bulshadu qaab bay kuu arkaan, adigana qumanahagaa qoorta kugu jira. ninka iskugu fiican baa tahay adigu, waxaad leedahay nin kaa fiican maba jiro. laakiin dadku qaab kale kuu arkaane ogow. dadku siday kuu arkaan? qof aamusan oo dadka ka go'an oo aan hadlaynin
maxaad la aamusantahay tolow ma doqonnimaad la aamusantahay mise caqli waxaan ahay qof bulshaawi ah oo dadka dhex gala hadhowta guriga sirtiisa sabnaad qaabkeed u jeceshahay qaabkeed u jeclaan lahayd inuu arooskeennu u dhaco aroos aan laga wada hadlin waan ku jeclahay waan kaa helay arooskii baa la gaadhi mar alla markii arooska la gaadhay waxay leedahay adeer anigu arooskay waxaan rabaa hotel mata hotel in lagu qato maxay maxaa dhahaa maxay 5 star anigu waxaan rabaa adeerkay oo Canada degan iyo ayayda Ingiriiska degan iyo maxaa la abtigay oo halkaa degan inay ka soo qayb galaan hayo kooxdii muusigada iyo islaantii buraanburaysay iyo maalinta dhalinyarada iyo maalinta haweenka iyo maalinta siisawootinta ayaa meeqa kharash baa ku baxday ii sheega qodobkan waxaan kaga niqaashi doonaa galabta 6da galabnimo markii la gaaro barnaamij dhalinyarada loogu talagalay bas ah oo magaciisa la yiraahdo dhalinyarada guurka maxaa ka hortaagan hadday isguursadeen durba maxay isu furaan ayaan kaga niqaashi doonaa haddii la yiraahdo oo jeclay inaad si fiican aad nogala qayb qaadataan haye arooskeennu qaabkee u dhacaya anigoon ku guursanin waa inaan ka heshiinaa haddaan ku arko inaad micyo dhaadheer leedahay waxaan ku leedahay abbaayo duurka gal mid yaroo aan isfahmaynaba imaanayse sax sooma ayib qodobka kale wuxuu leeyahay meherkaagu waa meeqa aye waxaa jira meher la yidhaahdo ii maqashii ma maqasheen ii maqashii ha la yidhaahdo magaaladan oslo la yidhaahdo gabadhii ugu meherka qaalisanayd weeye allahu akbar iigu dhawaaq kolba ima siin doonee laakiin kaamirada ha ii gasho facebookga ha lagu faafiyo in hablaayo intaa lagu meheriyey shaytaanku sida ugu ciyaaray fiiri galabtan kaga hadli doona haddii la yidhaahdo qodobka 16aad yaad la socotaa oo saaxiibba la tahay aniga saaxiibbadaadaan raba inaan hadhowta kugu qiyaaso dadka aad saaxiibbada la tahay qodobka 17aad waan ku jeclahay maxaa laga wadaa wallaahi cajaa'ib way qodobkan in badan baan maqlaa waan ku jeclahay waan kaa helay beerkay xanuunaya dhiiggaan kuu shubayaa maxaa laga wadaahe aye haddaan weydiiyo ninkaas odayga ah ninkaasaan sheegayaa ninka haddaan su-aasha weydiiyo mise ninkaasaan weydiiyaa maya kaasaan weydiinayaa xaaskaaga markaad leedahay waan ku jeclay maxaa ka wadaa gabadha inteeda guursanin aad leedahay waan ku jeclahay maxaa laga wadaa horta waa in las weydiiyaa war waan ku jeclahay waa in meel la saaraa hawey waan ku jeclahay waa in meel la saaraa idan su'aalahan oo dhan fiiriya waxay u baahan yihiin jawaab mar dhowna waxaa arki doontaan innagoo intaan weeb u samaynay oon su'aalahan jawaabo ku soo qornay qofku intuu jawaabahan galo su'aalahan uu qoro kadibna warqad kuu soo baxayso oo ku dhahaysa adeer weli maa guursan kartidee dib ugu noqo koorsaa lagu siinayaa gabadha ordaysaale nin baan guursanayaa adeer horta bal shuruuddan soo buuxi nin kale horta waan guursanayo horta bal shuruuddan soo buuxi okay yaad la socotaa waan ku jeclahay maxaa laga wadaa qodobka 18aad haddii uu yimaado khilaaf sideed u xallin doontaa qaabkee goobtee xilligee waa muhiim jiddan wey malaa'ig isma guursanin waxay isguursadeen waa bashar caadi ah haddaba haddaan isguursanno khilaaf imaado waxaan rabaa inaan ogaado khilaafka saad u xallin doonto goobtaad u dooran doonto qolka jiifka wax laguma xalliyo qolka jiifka hoolo waaweyn oo kale u yaalla dadka qaar baa waxay ku xisaabtamaan qolka jiifka haddii ay hadalka maxaad ii lahayd markaasaa hurdadii ninkii ka tegaysaa oo gabadhii ka tegaysaa markaasuu xagga isu gedinaya or qolka jiifka nidaam baa loogu talagalay dhalinyaro xaggee wax lagu xalliyaa fadhigaa lagu xalliyaa goobtee lagu xalliyaa xilligee la xalliyaa ma markaan xanaaqsanahay ma markaan shaqada ka soo galo ma markaan daallanahay ma markuu madaxii xanuunayo ma markay goormaa la xalliyaa saacaddee la xalliyaa meeshee lagu xalliyaa warkaas su'aalihiinta alawey adeer ninka qoslayow shaqada arrida ku taallaa ka jiifso qodobka 19aad qaabkeed u fahansan tahay barbaarinta ubadka adeer carruur hadduu allana siiyo qaabkeed u fahansan tahay meeqa kitaab baa soo akhriday meeqa dawraad soo qaadatay meeqa muxaadaraad soo dhegaysatay horta ilmaan dhalayaa ma ahane horta ilmo in la barbaariyo maxaad u fahansan tahay
qodobka labaatanaad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba adeer reerkani waa dawlad reerkan dawladda ah dhaqaalihiisu xagee ka soo gelaya habeen dhoweyd waxaa lay weydiinayey sheekhow waa ninaya xaas baan ku qabaa ameerika midna soomaaliyaan ku qabaa tii ameerika joogtay waxay leedahay waxba ha shaqaynina guriga noo joog adeer haddaadan shaqaynin maxaad qabanaysaa ma islaanta war annagaa wax aragnay hadda ka hor soomaaliya xoolaha dumarka dhurwaabaa ka eesheeg soomad maqal soomada maqal xoolaha dumarka dhurwaabaa ka calaacalay dhurwaabaa neef adhi a qaaday islaantu markay artay dhurwaab waxay alla waa kii neefkaygii cunay dhurwaabaa wuxuu yidhi wallaah haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa maba cuneen adigana markaasaad doonaysaa inaad maxaa la yidhahdaa aad haweenka waxooda cunto war haweenka waxooda ha loo daayo oo ha la shaqaysto waa muhiim qodobkaa marka qaabkee qodobka labaatanaad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa aan isku waafaqno qodobka 21aad mustaqbalka fog xaggee jeclaan lahayd inaad ku noolaato adiga iyo xaaskaagaba maxaa mustaqbal noo ah waa qodobka 22aad weeye qodobka 22aad qalbiga